wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ee gobolka Sanaag ayaa daawooyin iyo agabka caafimaadka ee ka hortagga xanuunka COVID-19 waxa ay ku wareejisay howlwadeeno iyo dhakhaatiir ka socda isbitaalka guud ee magaalada Badhan ee gobolka Badhan waxaana munaasabadii agabkaasi lagu kala wareegayay oo ka qabsoontay barxadda hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag ugu horeynba halkaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed iyo agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo Saciid Axmed Xasan maanta waxaan ku sugannahay xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxaaynu halkan maadaama sidii wada ogsoonahay dalka oo dhan uu ku jiro la dagaalanka xanuunka COVID-19 wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa ay markaa bilowday in ay gaarsiiso qalabka loogu talagalay ka hortagga oo aan ugu yeedhnay inay gudoomaan lana wareegaan horena uu gudoomay una qaatay maantana qaadanaya qalabka loogu talagalo COVID-19 cusbitaalka Badhan degmada ama gobolka Badhan taasoo haddii Allah awooda la yiraahdo dhakhtar Ibrahim iyo dhakhtar Cabdalla ay la wareegi doonaan haddii Allah ka dhigo agabkan insha Allah ilaahay idinkiina aan aaminsanahay sidii kuwii hore kale inuu kanina uu anfici doono insha Allah bidmilaahi kariim qalabkan waxyaabo ka kooban yahay waa qalabkii farxalka waa qalabkii maasaskii waa qalabkii loogu talagalay wash ama nadaafada in lagu maydho lagu kilin gareeyo waa qalabkii la xiranayay haddii Allah awooda la yiraahdo oo waxyaabaha loo isticmaalo dhammaan COVID-19 haddii Allah ka dhigo marka ku soo dhawaada waa ku mahadsantihiin adeega caafimaadka ee gobolka Sanaag ilaahay idimkii waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay nagu asturo meel kasta oo qof inaga joogo inuu gaadho wacyigelintii iyo qalabkii iyo agabkii loogu talagalay qof kasta oo xanuunsada waxaan jecel lahay in adeeg loo baahnaa inaynu gaarsiino haddii Allah ka waxaa nala jooga dhakhaatiir iyo ambalaaskii Badhan oo halkan uu isuduwo ku guddoonsiin doono dawooyin loogu talagalay isbitaalka Badhan taasoo ah waxyaabaha lagaga hortago coronavirus-ka waxaanu aad ugu soo dhaweynaynaa wada shaqaynta iyo isku kalsoonida shaqaalaha ama mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolka waxaa isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay Ibrahim Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Badhan isla markaana agabkaasi u gudoomiyay isbitaalka guud ee magaalada Badhan oo Xuseen dhankooda ku faraxsan yihiin in agabkaasi kala wareegaan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag maanta oo bisha June tahay 7 waxaanu xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag ku gudoomaynaa agabkii loogu talagalay ka hortagga coronavirus degmada Badhan ama cusbitaalka Badhan qaybtiisii waxaanu gudoomaynaa agabkiina loogu talagalay waxaanu kala kulanay saaka isuduwaha iyo tiimka wasaaradaba soo dhaweyn fiican iyo qoondadiina loogu talagalay aanu gudoonay aad baan uga mahadcelinaynaa isuduwaha iyo tiimkiisa aad baad u mahadsantiin Yunis Sheekh Ahmed Universal TV Ceerigaabo.